arday ayaa ku dhacay jaamacadda. macallinkii jaamacadda ayaa weydiiyey maxay tahay sababta aad u dhacday oo aadan u aqrin imtixaanka. ardaygii waxa uu yidhi macallin sanadka oo dhan waa 365 maalmood oo keliya iguma filna. tusaale ahaan maalin walba oo jimco ah waa maalin cibaado, sanadka oo dhanna waxaa ku jira 52 maalmood oo jimco ah, mana jiro qof maalinkaas wax aqriya. waxaa soo haray 313 maalmood. 60 maalmood oo sanadka ka mid ah waa fasax oo ma jiro qof wax aqriya oo waxaa la aadayaa safaro iyo meelo kala duwan. waxaa soo haraya 253 maalmood. maalin walba waxa aan hurdaa 8 saacadood, taas oo ka dhigan in 122 maalmood aan hurudnay. waxaa soo haraya 131 maalmood. saacad maalinkii ka mid ah waa jimicsi, sanadkii waxa ay noqonaysaa 15 maalmood. waxaa soo haraya 116 maalmood oo kaliya. waxaa ka jirta 15 daqiiqo oo quraac ah, nus saac qada ah iyo saacad casho ah. iyada oo si fiican loo calalinayo cuntada waxa ay noqonaysaa 19 maalmood. waxaa soo haraya 97 maalmood. hal saac oo maalinkii ka mid ah waxaan u baahanahay inaan dadka la hadlo, sababtoo ah waxaan ahay noole hadal u baahan. waxayna noqonaysaa sanadkii 15 maalmood. waxaa soo haraya 82 maalmood. sanadka inta imtixaanka aan gelayo waa 45 maalmood. waxaa haraya 37 maalmood. ciidaha, maalmaha xurriyadda waddanka iyo maalmaha fasaxa marka la isku daro waxa ay isku noqonayaan 10 maalmood. waxaa soo haraya 27 maalmood. sanadkii inta aan xanuunsanahay waa 7 maalmood. waxaa soo haraya waa 20 maalmood. hal saac iyo rubuc waxaan daawadaa musasal, waxay noqonaysaa sanadkii 19 maalmood. waxaa soo haraya hal maalin oo kaliya, maalintaasna waa maalinta dhalashadayda oo aan jeclahay inaan qaab farxad leh ku qaato. intaas ayaan muuqaalkan ku ekeenayaa. like saar, sidoo kalena asxaabtaada u sheer garay oo koobi linka dheh. mahadsanid.